ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan waddanka Algeria ama Jazaa'ir waa dal baaxad weyn laguna naanayso dalka milyanka shahiid. Algeria waa dal dhaca waqooyiga qaaradda Afrika kaasoo qayb ka ah dalalka dhaca xeebaha Mediterranean-ka. Waddankani wuxuu xuduud la wadaagaa wadamada Morocco, Western Sahara, Mauritania, Mali, Niger, Libya iyo dalka Tunisia. Algeria waa dalka tobnaad ee ugu baaxadda weyn dunida. baaxadda oo ku fadhiya dhulka Algeria waxaa lagu qiyaasaa 2.3 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran. kadib madax banaanidii South Sudan, Algeria waxay noqotay dalka ugu baaxadda weyn qaaradda Afrika. Algeria waxay baaxad ahaan ka weyn tahay isku darka wadamada Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, UK, Spain, Switzerland, Netherlands iyo Belgium. tirada dadka ku nool waddanka waa 44 milyan, waana dalka 12aad ee dadka ugu badan dunida haysta, ahna kan 9aad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan. dadka waddanka ku nool 99% waa dadka lagu magacaabo Barbariga, kuwaasoo dega dalalka Morocco iyo qaybo ka mid ah dalalka kale ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. dalka Algeria waa dal aad u horumarsan. dadka reer Algeria ee wax qora waxna akhriya waxay kor u dhaafayaan 80%. dhanka heerka horumarka aadanaha HDI waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya qaaradda Afrika. Algeria waa dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika. dhaqaalaha dalku wuxuu ku dhow yahay 200 oo bilyan GDP normal. dakhli sanadeedka soo gala dadka Algeriaanka ah halkii qof waxaa celcelisaan soo gala 18 sanadkii, waana mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya qaaradda Afrika. Algeria waa dalka 16aad ee leh kaydka saliidda ee ugu ballaaran dunida, waana kan labaad guud ahaan qaaradda Afrika. kaydka shidaalka ee waddanku waa 12 barmiil. 90% dadka waddanka ku nool waxay degan yihiin waqooyiga dalka oo ah aagga xeebaha, maadaama dalka badankiisu yahay saxare lama degaan ah. luqadaha dalka lagaga hadlo waa Carabi, Barbariga iyo Faransiiska. dalkani waa mid ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee ku hadla afka Faransiiska, balse luqadda qaranku ee dalka Algeria waa Carabiga. Algeria waa dal aad u waxbarasho fiican. jaamacadaha waddanka waxaa wax ka barta arday ka timaada dalalka kale ee dunida. sidoo kale Algeria waa dal leh ciidan xoogan oo aad u badan. dhaqaalaha ku baxa ciidanka dalka sanadkii waxa uu dhan yahay 9.8 bilyan, waana kan ugu horeeya qaaradda Afrika. caasimadda waddanku waa Algiers, ahna magaalada ugu weyn dalka, waxaana ku nool in ku dhow 4 milyan oo qof. waxay ku taallaa caasimadda waqooyiga dalka oo dadka badankiisu ay ku nool yihiin. dalka Algeria wuxuu hantay koobka qaramada Afrika 2 jeer, sanadkii 1957 iyo sanadkii 2009. waddankani nidaam ahaan waa jamhuuri, uu madaxweynuhu leeyahay awoodda ugu sarreysa, kaasoo lagu magacaabo Cabdulcasiis Bouteflika, wuxuuna dalka xukumayay 19 sannadood in ka badan. waxaa iscasilay madaxweynihii dalka kadib 6 toddobaad oo banaanbaxyo socdeen. 2013 ayuu noqday madaxweyne Cabdulcasiis Bouteflika mid howlgab ah, waxaanu la daalaa-dhacaya xanuuno badan. 5 sano ee ugu dambeysay wuxuu ahaa xukunkiisu mid kursiga ku soo ururay oo aan wax dhaqdhaqaaqa lahayn, isagoo warbaahinta ka soo muuqday waqtiyo kooban. markii uu iscasilay kadib waxa uu cafis weydiistay shacabka dalkiisa. calanka dalkani waa mid ka kooban 3 midab. midabka akhtarka waxa uu taagan yahay diinta Islaamka, halka midabka cadaanka uu taagan yahay xasiloonida iyo nabadda. midabka casaanka ayaa u taagan halgankii iyo dhiiggii loo daadiyey waddankaasi laga soo bilaabo 1930 ilaa 1962 oo uu haystay gumaystihii Faransiisku. waxaana 1950 bilaabmay kacdoonkii lagu xereeyay dalka Algeria, waxaanu halgankaasi dhammaaday 5 Juulaay 1962. intii uu socday halgankii xorriyadoonka ah ee Algeria waxaa naftooda ku waayay 1 milyan iyo badh qof, waana sababta lagu naanayso Algeria dalka 1 milyan ee shahiid.